عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي كسر هذا شانل كيغا ولا شنو معيمن waxaan rabaa maanta inaan iga faa'iideeyo walaalaha cayilka jirkooda isbeddelay qarqaraxa ku dhaliyay masha Allah si qarqaraxa looga biya dumar hadaan nahay cajalada caloolaha inta badan qofka haduu cayilo ilaa gacmaha ka gashaa marka seeba loo biya weyn qarqaraxaas masha Allah meel walba gashay waxaan u baahanahay saliida olive-ka laba koob oo ka shaaxa ayaa saaraysaa laba koob oo sarada shaaxad ku cabtaan dabka saaraysaa qaado milixdan adarkaysiin waa maaha milixdan caadiga waa milixdaas aan soo shiiday waxa kale oo khamoonti masha Allah laba qaado waaweyn laba qaado shanjabiila dabkaas la saaraysa marka si fiican isku dhex gasho waxaan ku darsanaynaa figiska noocay tahay waxa weeyaan waan soo sheegay insha Allah Facebook aan igu soo tusaya kan waraqad way ka go'day waxa weeyaan nooca laga sameeyay kaanfuurka saliidiisa iyo saliida baxar saafka iyo mental mid la yiraahdo saddexda waa inuu ka sameysnaado kaas number 1 hadaad weydaan dib male qofkii marka yiraahdo walaala yiraahdo figiska xasaasiyad baan ku ahay hadaad figiska xasaasiyad ku tahay kaanfuurka ku bedelo kaanfuurkuna masha Allah waa waxa figiska laga sameeyo isaga saliidiisa hadaad helaysid aad bayna u fiican tahay kaanfuurka iyo subaga isku darsanaysa korayada masha Allah laga ma sheekeen karo oo ku darsanaysa marka si fiican isku dhex galaan dabkii oo naaqusan waxaad sameynaysaa maashinkaaga gacantaad gelinaysaa maashinka caynkan oo kala day ku taalo baad ku sameynaysaa dan qarrad baad ku shubanaysaa subaxii markaad soo kacdid jirkaagaad marsanaysaa number 1 markaad subaxii soo kacdid waxaan rabaa waa follow garanaysaa instructionka afkaaga soo kala furtid tani bad qaadanaysaa 10 dhibcood bad qaadanaysaa afkaaga ku shubanaysaa masha Allah marka 10 dhibcood afkaaga ku shubatid waxaad sameynaysaa alaabtaada baad gelinaysaa jag jirkaagaad marsanaysaa dharkaagaad xidhanaysaa gurigaagaad ka shaqaysanaysaa dhar jirka kugu dhagan suwaal iyo garan then baatigaaga ka dul xidho markaad inta iska dhaqdi habeenkii waxa kale oo diyaarsanaysaa olive-ta dabka saaraysaa qaada xabag cadaada oo daqiijisay waa tayada badan meel walba laga helaa oo daqiijisay ayaa masha Allah aad ku shubanaysaa qaadada xabag cadaadka iyo olive-ka markay si fiican isku dhex galaan waxaad ku darsanaysaa qaada kastar oil iyo qaado glycerin maqaarka ay fiican tahay cream bay ku noqonaysaa waati maashinka gacantaad gelinaysaa bas taasaad ka daba marsanaysaa markaste ood ka meeritid alaabtan kaasaad marsanaysaa kan muxuu sameeyaa maqaarkaagu adkeynaya maqaarkaaga jilci lahaa strong buu ka dhigaa masha Allah ka anna inaad exercise samayso kale inkastoo exercise-da qaar masha Allah nisoo tuuri doono Facebook-gayga dumar ahaan inaad samaysaan ay fiican tahay inigoo saligaaga ka kicin oo saligaaga iska dhex fadhid masha Allah ku tukanaysa jooga ayaad ku sameyn kartaa marka kaana ka daba marso waxa kale oo ku diraya oo noloshaada shaaxad ka dhiganaysana waa kan shaaxa daba inaad bedeshid baan rabaa shaaxyada aad cabaysid intaadna bilaabin shaaxan waxaan rabaa waa miracle masha Allah waa macjiso hablow marka miisaankiisa saar meel igu qor miisaankaaga waan soo wada cuntooyinkana aniga bariis pasta sheekada ma rabo insha Allah waa hablaha raba inay cayilka iska ridaan habla private ahaanna way jirtaa aan masha Allah qol aan group leenahay marka insha Allah kuwaasina kulay masha Allah laakiin waxaan nii sheegay insha Allah walaalahayo shaaxan waa miracle sadarkaysiin waa midho yar midhahan waa laba midhood isku eg kana madow iyo kana cad sadarkaysiin kan ajwan baa la yiraahdaa meel walba ka helaysan akhwaati kana waxa la yiraahdaa celery seed baa la yiraahdaa celery-ga aan cunno wad aragteen ee dhaadheer qudaarta waa midhihiisii masha Allah oo la soo koobi karin iyo kan labada hadaad karkarisid oo cabtid liter baad qaadada weyn aad ku karnaysaa waxa 2 liter oo biyo aad ku karsan kartaa hadaad doonto liter iyo badh baad ku karsan kartaa masha Allah waxaan ku kama sheekeyn kartid markaas masha Allah meel ba dhiganaysaa maanta dhan biyaha cabaysaa ama plus baad samaysanaysaa oo ku shubanaysaa inaba xadi ma ku ri masha Allah biyahaas biyo ka dhiganaysaa jirkaaga isbedel fara badan baad arkaysaa marka qadaysid 10 dhibcood oo kana cabaysaa marka hadana cashada joogtid aad intid 10 dhibcood baad cabaysaa 30 ka dhibcood oo tan kugu ogay way tani maxay taraysaa waxay kugu soo celinaysaa gabadhnimadaadii masha Allah waad fahmaysaan waxa la yiri dadku bilaadanku sarbeebta wax isku fahmaan ma ogtahay gabadhnimadaada bay kugu soo celinaysaa maadooyinan inaba caadi ah dumar ahaan aad u baahan tahay ku jirta hormoonkaagi baa ku jirta energy baa kugu jira masha Allah saad darteed waxa weeyaan qofku markuu cayil iska ridayo weeg badan baa ka dhacay dawaqaad baa ku iman karta daal baa kugu iman kara jirkaaga wax baa ku soo kordhi kara waayo inteeda badan dumarku
saddexda cuntood ay cunayaan ma dheeli tirno haddaad si kasta ugu dheeli tirtid waxay ku leedahay ilmihii maa ku mashquulsanaa kama gaari karin quraacii kani maanta ma samayn karin sidaa darteed baa koos garanaysaa si kasta qofka koosh loogu noqdo marka waad u baahan tahay wax tabartaada kor u qaada marka sidaa darteed waxaan doonayaa walaalaha inaad saliidaas aad naftiina uga warhaysaan muhiimada weyn bay nii tahay maasha allah tabartaadii bay ku soconaysaa hormoonkaagay saxaysaa maasha allah hormoonadaada markay saxdana dad badan oo ilma raadisaa ku jira oo ilaahay maasha allah wax walba ugu deeqi karo ilaahay baa qafuur raxiima wax bixiya inkastoon ku odhan lahaa qaata maasha allah aan ku adfays karin lahaa aad iyo aad walaalaha maad aragtay xasuustii arkay inay kasii tegayso amba qalbi camada ku badan tahay amba aan wax xifdiyi karin oo kale aada ugu fiican tahay bahashan maasha allah waxyaabo fara badan baa laga arka feedbacka dadka xanuunada artritiska ama xanuunada haya markuu cayilku ku dhaco oo kale dadka tayroodka oo kale iyagoo cayilka u keena oo kale aada ugu fiican tahay tayroodka maasha allah feedback baa laga hayaa dadka xanuunada xubnaha gala amba macaan hadduu ku hayo oo kale aad bay walaalay kuugu fiican tahay markaa jirkaaga inta rabadaanka sidaas fiican u soontid naftaada number 1 ka dhig number 1 ka dhig culimadu way idhaahdeen cuntada ugu fiican hooyadu waa inay cuntay dhahan ka bacdi dadka reerka noole laakiin naftaada cuntada ugu fiican cun vitamiinka ugu fiican cun waayo adiga number 1 guriga qofka wada waa adiga hadduu waxa la yiri gaariga shaagagiisu xumaadaan dee gaarigu dhaqaaqi maayo marka shaagii dhanaaba tahay haddaad naftaada waxba u quureyn dadkii reerka kale oo dhan aad ka fikirtid aad naftaadina ka fikirin waxba kuma suurta galayso qofka bini'aadanka horta cayilku waa wax la dhibsado akhwaati cibaadadoo kale waxay tahay qofku inuu fadhiga ku tukanayaa waxay u xuntahay qofku xitaa marka lagu qaadi kareyn oo kale nacam waa dadaali kartaa akhwaati intaad nooshay dadaal qofkii markaa ilaahay xanuun u keenay ee sariirta jiifa ballan waxaan kugu qaaday qofka sariirta jiifa xitaa inaan waxa weeyaan xabag cadaadaas ay ka ridayso innagana maanta dhulkeena maxay ka joogtaa qiimo beesteen bay ka joogtaa markaas qofka sariirta jiifa in cayilka laga ridi kari waaye ayaa gaalada la siiyaa heer la gaadhay aan exercise samayn karin maxaa u malaynaysaan markaa inaku haysana wax walbana wax kasta dhulkeena way taala aqwaati caafimaad kastana maasha allah uu jira ilaahay waana siiyey intaad nooshaad hadlaysid wax walba waad iska ridi kartaan nafta waad hagaajin kartaan dhexda waa la dhuubi karaa marka maasha allah waxaan ku yiri naftiina wax badan fadhiga laga kaco insha allah dhexda hal la xidho akhwaati insha allah walaal wixii su'aala ay wax garan weydaan insha allah igala soo xiriiri kartaan waxaan insha allah saasan isku ognay walaalaha nagu cusub channelka subscribe iyo like saar insha allah saad aragtaan waxyaabada cusub soo dhigi doona insha allah wixii su'aalana waa isoo post garan kartaan wixii information iyo saliidan iyo qaabka aad u heli kartid meel kasta dunida ka joogto waad heli kartaa Africa Asia everywhere masha Allah meel kasta waa laga heli karaa akhwaati boosada ku keenaysa meel walba adduunka wax walba waxa weeyaan booseelada adduunku wax walba masha Allah wana la ogoliyay waa saliid masha Allah company oo aad masha Allah looga dambeeyo oo wax walba faa'iido looga arkay masha Allah xitaa waxaan siinay qof kaliisa la dhaqayo oo aad faa'iido badan uga helay masha Allah maanta cidaan uga cabsi qabno male masha Allah saliidan inaba caadi maaha برينك حتى عادي ما سأبوز قرينس ما شاء الله قفكو مدام حسوستي سلولي سوء عليسي مدام حفدسكي ما شاء الله ضد بنسيسي وح بدن بالغاها يا ما شاء الله يعني وحا اللي كل وحول بحانون أدويدا يا لا إلهي وح وين دودي دو كاني وح عند ولاين ما جرتو مركو كلن سيوم بعد ما شاء الله دودات أركيسا كان سكود دالنا إن شاء الله مدام رمضان سو سعتو وفر بس دا نرجو يعيدا ما شاء الله وكارو والسلام عليكم ورحمة الله.